waxaan mahad u celinayaa dhalinyarada ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo maalmahan idin la joogtay oo bixinaysay tababarkan. waxa kale oo aad ugu faraxsanahay in qarameyntii leedin sameeyay kadib inaad bilowdeen inaad qayb ka noqotaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, inaad qaadanaysaan tababarihii leedin kugu tala galay, inaad leedihiin ahmiyad maanta aad ku hogaamisaan dalkiina, aad ka joogtaan magaaladan caasimadda u ah Galmudug, laakiin waxaad hadda tihiin saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. markii aan halkan idinkaga tegey hadafkeennu waxa uu ahaa inaan ka shaqeyno sidii aad ku heli lahaydeen xuquuqda aad ku leedihiin dalkiina. waxaan ku faraxsanahay in aad leedihiin hoggaan qaybta iyo guutada oo aad ka amar qaadataan idinkala shaqeeyana in la sugo xuquuqda aad ku leedihiin qarankiina. haddii qaar idinka mida ay su'aalo ka qabaan ama ay wax ka noqdaan xuquuqdaasi, waxaa jira dariiq la soo maro oo guutada aad ka tirsan tahay, qaybta aad ka tirsan tahay. halkanna waxaa idinla jooga dhalinyaro hogaamisa hogaamada ciidanka qaar ka mid ah, hoggaanka maaliyadda oo Ibrahim hogaamiyo, hoggaanka ciidanka oo Imraan hogaamiyo, dhalinyaro yaryar oo mar dhow jaamacadda dibadda iyaguna ka soo qalin jebiyey. waxaan rabaa inaan idinkala hadlo laba arrin iyo mid uu ka hadlay taliyuhu. midu waxa ay tahay xuquuq, midna waajibaad. xuquuqdu waxa ay tahay waa in dawladdu ay idin siisaa wax walba oo xaq u leedihiin. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa mustaqbalka dalka, waa sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed, waa iftiinka dalkeenna, waa ciddii difaaci lahayd baddeenna, dhulkeenna, waa ciddii hooyooyinkeen iyo aabbooyinkeen ka ilaalin lahayd cadowga, waa ciddii nalo kaga cabsan lahaa. sidaas daraaddeed dawladda Soomaaliya waxaa ku waajiba inay idin siiso wax walbo xuquuqa. waayahan waxaan ka shaqaynaynay in ciidanka dib u habeyn lagu sameeyo, la ogaado tirada dhabtaa ay yihiin, la ogaado tayadooda. waxay taliya qooje iyo taliya Mascuud ku amran yihiin inay qayb ka qaataan dib u habeynta ciidanka lagu sameynayo, oo ah sarkaal walba iyo askari walba inuu joogo goobtii loo asteeyey inuu ka shaqeeyo, laakiin dawladduna ay bixiso xuquuqda ay leeyihiin. idinku waxaad ka soo wareegteen urur Soomaaliyeed oo Al-Sunna la yidhaahdo oo dalkan ka soo shaqeeyey, oo amni ka soo shaqeeyey, oo maamul soo ahaa, laakiin hadda waxaad u soo wareegteen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. maadaama laydin qarameeyey, xuquuq aad leedihiin, laydin tababaray, aada labisantihiin, waxaan rabaa inaan idin xasuusiya laga bilaabo saacaddan aan idinla hadlayo waxaa laydinkula xisaabtamayaa waajibaadka laydinku leeyahay. meeshii aad ka tirsanaan jirteen iyo dawladda federaalka kama wada tirsanaan kartiin, mana aqbalayo. laakiin qof walboo halkan jooga waxaan rabaa xuquuqdiisa in la siiyo, bil walba inuu mushaarkiisa qaato. hadduu cudur ku dhaco ama xabadi ku dhacdo in la soo qaado isla markii la keena xamar si loo daaweeyo. hadduu tababar u baahdo dibadda loo diro. hadduu dhinto carruurtiisa xuquuqda la siiyo. waxaan rabaa inaad yeelataan xuquuq buuxda, laakiin xuquuqda waxaa la socdaa waajibaad. soo sidaa ma waxaad isu soo taagteen idinkoo saraakiil ah. waa inaad fahamtaan sarkaalka macnihiisa. sarkaalku waa indhaha ciidanka, waa bilowga dawladnimada iyo madaxda. idinka ah marka tusaalihii iyo iftiinkii. sababtay muhiim u tahay marka inaad idinku muujisaan inaad tihiin hormuudka dalka waa sidaas awgeed. waa soo dadaasheen, shaqo badan baad soo qabateen, laakiin waxaad saldhig u tihiin
ciidan Soomaaliyeed oo la rabo inay soo celiyaan mustaqbalka iftiinka iyo iftiinka ummadda Soomaaliyeed oo aan jabhad iyo qabiil iyo dan gaar ahba lagu soo celin karin waa laga soo quustay ku dhawaad 30 sano sidaas daraadeed waxaa laga rabaa Generaal Mas'uud iyo Generaal Qooje iyagoo ilaalinaya waajibaadka iyo cadaaladda iyo xuquuqda saraakiishan in haddana la xaqiijiyo in saraakiishan ay u shaqeeyaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed la islaama barbar dhigi karo qof aan ciidanka u shaqeynay qof u shaqeeyo waa sababta aan ciidanka u diiwaan gelinay dalkoo dhan sababta qof walba mushaarkeeda koontay leeyihiin loogu soo shubo sababta loo joojiyey in mushaarka ciidanka iyo ciidanka uu qof u dhaxeeyo waa sababta aan u bilownay inaan musuqmaasuqa la dagaalano waa sababta aan rabno dib u habeynta qaybteeda labaad marka ay soo dhammaato inaan dib u eegno xuquuqda ciidanka si taas ay u dhacdo waan ciidanka aamin lagu qabi karaa waa inuu noqdaa ciidankii lagu soo ordaayey oo aanu noqon ciidan laga cararo waa inay noqoto bilowgii ammaanada bilowgii runta bilowgii sharafta halkan waxaa kaloonu imid maantay inaad idinkula dardaarmo laga bilaabo maantay waa in taliyaha qaybtiinnu isagoo idinka idin kaashanaya iyo taliyayaasha iyo saraakiisha kale inaad bilowdaan inaad isu diyaar garaysaan sidii deegaankoo dhan looga xoreyn lahaa cadowgii aan ku ballannay in laga xoreeyo waxaan idinkala shaqayn doonaa aniga iyo madaxweynaha iyo taliyaha xoogga iyo dhammaan taliyayaasha hoggaamada in laydiin soo dhammaystiro agabkaa u baahan tihiin waxaa ciidan u tihiin dalka Soomaaliyeed laakiin deegaankan hadda aad joogtaan oo galmudug oo qaarkiin hore ugu soo dhaawacmay waxaa jooga wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed oo mustaqbalkooda mugdi ku jiro haddii aan cadowga laga xoreyn in cadowga laga xoreeyo oo mustaqbal loo sameeyo waxay ku xiran tahay damiirkiina sida uu noqdo sida aad u dhaqantaan idinku waxa ku xirnaan doontaa hadafka aad yeelataan waxaa la rabaa inta ay socoto dib u dhiska dowlad goboleedka galmudug inaan ku dhinac wadno xoreynta dowlad goboleedka galmudug waayo habeenkii ka dhuma wiilka cadowga aad taqaanaan ku hoos nool waa habeen mustaqbalkiisa ka go'ay ama gabar Soomaaliyeed mustaqbalkeeda ka go'ay ama hooyo iyo aabbo Soomaaliyeed ay arkayaan mustaqbal gudcur ah sidaas daraadeed xuquuq waajibaad saraakiil hoggaan agab la soo dhammaystiro iyo waxaan rabnaa inaan isku xirno in laga waayo dhammaan deegaanka galmudug wax la yidhaahdo cadow shabaab ama khawaarij ah kadib markaad dhammaysaanna in laydin qaado dalka intiisa kale laydin geeyo ilaa waddankoo dhan aad ka tirtiraysaan haddii ilaahay yidhaahdo marka dambe oon ku soo laabta halkan marka qaarkiin waxaan rabaa inay xarar dheere igu yeeraan qaarna ceel dheere igu yeeraan qaarna ceel buur igu yeeraan qaarna ceel garas igu yeeraan dhulkii tuugada iyo khawaarijta laga waayey dhulkii dowlad goboleedka midaysnaa dhulkii ciidanka xoogganaa dhulkii soo celiyey sharafta Soomaaliyeed dhulkii saraakiisha iyo ciidankooda isku xirnaayeen dhulkii aqbalay in qarannimadu ay qawi tahay inaad ka dhigtaan rabaa halkan waa mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.